Abokor Carabi Leye waa gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga xaakimka kulmiye gobolka Togdheer waxaana maanta wareysi khaas ah oo kula yeeshay magaalada Burcaan wax ka weydiiyay xaaladda abaareed muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagneed gudaha dalka gaar ahaan gobolada bariga Soomaaliland waxaana uu yiri aad badan Khalid oo mahadsan tahay runtii abaartaasi abaar waliba aad u adag oo nolol adag baa runtii dadkeena soo wajahday goboladan barigana waliba culeyskeeda ku badan nimanka dawlad og tahay xoolaha lama hadlayo xoolaha intii badneed way baxeen dadkii baa runtii khatar ku jira waxyaabaha ugu daran dadkii imka mushkiladu ka haysta kamid ah biyo la'aan waxa kamid ah cunto la'aan waxa kamid ah Allahumma salli ala Muhammad caafimaadkii runtii aad imka maqlaysay shubana iyo meelo ay ka dilaaceen marka wallahi runtii xaaladda abaarta ee goboladan bariga aad bay u daran tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala rajaynayna in uu inaga soo furto waad maqlaysay ayaamihii u dambeeyay waxa soo yeeriyay dhawaaqyo muujinaya in abaarihii dad u dhinteen waxaad maqlaysay in la sheegay dad isu dildelay xaaladda adag ee runtii soo wajahday waxaynu ogno ka warqabnaa dad badan oo reer Soomaaliland goboladan bariga ku nool inay la ildaran yihiin oo la nool yihiin duruufta adag ee abaaraha waqtiga jirta marka runtii aad iyo aad bay arrinkaas u taagan yahay xaalad adag oo jirta runtii waxa jira dadaal fiican oo amaan mudan oo runtii muuqda oo arinta abaaraha lagu la tacaalayo haday ahaato xagga dawladda ay ahaato haday ahaato xagga gudida abaaraha haday ahaato gudida abaaraha heer qaran haday ahaato hay'adaha samafalka ee gudaha ka shaqeeya haday noqoto bulshada reer Soomaaliland Abokor Carabi Leye gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga xaakimka kulmiye gobolka Togdheer ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay qorshayaasha lagu taakuleen karo dadkan ay abaartu saameysay iyo sidoo kale doorka uu xisbigoodu ka qayb qaatay taakuleenta dadkani waxyaabaha deynala gudboon u baahan in aynu sameeyno waxa kamid ah in gurmadka halka laga sii wado in qof waliba marxaladii hore iska bedesho marka hore waxyaabaha dheeraadka baa lagu bixinaya abaaraha imika qof waliba asaasiyaadkii bay timi qofka saddexda waqti haysta saddexdiisa waqti qayb kamida inuu ugu tala galo inuu gurmadka abaaraha runtii ka qayb qaato arintaa waan soo jeedin lahayn in bulshada isku tashato in wixii aynu hayno aynu isu geyno gaar ahaan waxaan soo jeedin lahaa meelaha bulshada ku kulanto in laga sameeyo gudiye qaadaan urureen oo dhaqaale ururneed haday noqoto meelaha bulshada ku kulanto waxa kamid ah masaajidadii waxa kamid ah suuqyada waxa kamid ah dugsiyada waxa kamid ah jaamacadaha waxa kamid ah goobaha shaqada iyo ganacsiyada waaweyn ka jiraan meelahaas oo kale in gudiye dhaqaale ururin laga sameeyo oo runtii gudida arinta hoos loo daadajiyo oo qof walba jeebkiisa wixii ku jira wax laga soo saaro hadaan xisbigan kulmiyo runtii anaga aad baan uga qayb qaadanay ilaahay imkana waan ku hawlanay ka qayb qaadano xisbigu sidaad ogtahay wuxuu ka qayb qaatay gobolkeena Togdheer imkan joona $40,000 buu gudoomiye ugu deeqay 300 booyood mar buu keenay gobolka Sool oo kale $40,000 buu ugu deeqay gobolkan Saraaro kan $20,000 baa xisbiga kulmiye ugu deeqay gudida heer qaran garabka dhalinyaradu si gaar ah u qaadaan ugu wareejiyay garabka haweenkuna si gaar ah ugu wareejiyay dhar baa jira dhalinyarada xisbiga kulmiye ay ugu deeqday oo dhar aad u fara badan abaarta loogu talagalay dadka dhaxanta in laga gashado marka xisbigu runtii aad buu uga qayb qaatay ilaa imkana uu ku hawlan yahay waxay ahayd 17 bishii kadib markii dhalinyaro kala duwan oo kooxo abaabulan oo ku nool gudaha magaalada Burco ay dhex martay rabshadii waxaana wax ka weydiiyay gudoomiyaha arintaas isagoo baaqlay u soo jeediyay dhalinyarada gobolka Togdheer dhalinyaradii gobolka Togdheer arintaas dhacdo fool xun bay ahayd dadkii runtii aad bay uga fajicisay arrin runtii laga naxabay ahayd arrin nabadgeliyada iyo xasiloonida iyo amniga gobolkeena iyo guud ahaan qaranka wax yeel karabay ahayd dhalinyaradeenna runtii waxaan u dardaarmaynaa arrintaas waa inagu ceeb gobol ahaan waliba arrimaha la inagu aqoon in arrinka la masaxo oo la tirtiro dhalinyarada waxaynu dardaarmaynaa in la ilaaliyo walaaltinimada isku duubnida isku xidhnaanta kalgacalka iyo wanaaga dhalinyarada dhexdeeda wixii abuuraya waxa inagu ceeba marka waxaan u dardaarmaynaa dhalinyarada gobolkeena arrinta in wixii dhacay dhace wixii dambe inaan dib inoogu soo noqonin walaaltinimada iyo isku duubnida iyo saaxiibtinimada in la ilaasho gabagabada Abokor Carabi Leye waxa uu baaqlay u soo jeediyay dhalinyarada Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo sidoo kale abaartani baasan ay ka taagan gudaha dalka Soomaaliland waxyaabaha muhiimka ah runtii aan soo jeedin waxa kamid ah arintaas dhalinyaradu inay ka qayb qaato horumarka dalkeena iyo qarankeena ka socda nabadgelyadiisa horumarkiisa isbedelka wanaagsan dalkeena ku talaabsan karo arrinka dhalinyaradu inay ka qayb qaato qodobka labaad ee muhiimka ah asaasiga oo dhalinyaradu waxa kamid ah dhalinyaradu inay ku dadaasho aqoonta inay wax bartaan markasta bulshadeena iyo dhalinyaradeena wax barato dalkeenu wuxuu gaari karaa isbedel iyo nolol wanaagsan iyo mustaqbalkan imika aynu joogno mid bal ka fiican marka dhalinyaradeena in xagga aqoonta way isku filaan karaan noloshooda meel u gaarsiin karaan dadkooda way ku filaan karaan aqoontaana in culays la saaro waxaan kale aad u dhiirigelinayaa dhalinyaradu inay ka qayb gasho siyaasadda oo ku soo dhawaato oo waliba siyaasadda mid ka bedelan tii hore ee dadkii inaga hore ku jireen wax ka bedelan wanaagsan in ku soo korno Khalid Bakayle fogaanada Goxorta Star TV Burco.